Sunshine Media. Subscribe for more. sheekooyinka waa dheer iyo nadaadi ka sheekeeyo meel boros la yiraahdo magaalo ka mid ah waa Sweden yaan galab sidaas oo kale masaajidkii aanu khuruujka ku ahayn baan banaanka uga soo baxay anigu casarkii meel yaro jardiin oo la yar fariisto beer ah baan iska yar fariistay mid Sweden ah oo cadaan ah ayaa daarta masaajidka aanu ku jirnaa masaajid sidan u dhisan ma aha waa shaqo yar oo guriga ka mid ah oo hoos ay ka kireysteen muslimiinta kireysto masaajid u bedelay ee guri un bay ahayd shaqo yar bay waliba ahayd bayaan marka ninkii oo isoo agmaray wuxuu yiri assalaamu alaykum wa alaykum assalaam uu iska fariistay marka waxaan akhuna muslim yarkii yaa iga tarjumay yar ila socda ila tarjuma wuxuu yiri muslim miyaa tahay buu ku weydiiyay maya muslim miyaa buu yiri oo assalaamu alaykum maxaad u tiri baan yiri wuxuu yiri ani kelimadaasaan jeclahay maxaad ku jeclaatay wuxuu yiri kor baan deganahayo mar alla markaan soo dago muslimiinta masaajidka ku tukanaysa markay soo baxaan ama sii galayaan assalaamu alaykum bay isdhahaano way isu dhunkadaano shay isu jecel yihiin baan jeclaadayo kelimada waa iska jeclaado waa iska iyadaan adeegsadaa assalaamu alaykum ma qof kasta iska dhaha yowar iska jeclaaday hadda waxaan idhi islaamka ka warrano wallahi islaamka aad buu u amaanay islaamku waa diin wanaagsan waa diin fiican waa diin wuxuu yiri dadkan aan ku jeclaaday iyagoo waxba haysanin oo masaakiin hadana faraxsan oo isjecel kalgacaylka ka dhaxeeya maxabada ka dhaxaysa islaamka aad buu fiican ma iska islaamtin maxaa ku diidaan wuxuu yiri liiguma yeerin cidna iima sheegin balka warramo هيا أنا قاعد أقول يا وأنا أقبل ما اللي أقبل كراها والله وحي لنا قطع الرنوس وقاعد كرواي ما اللي أقبل يا أنا المسلم مقضى ها مسلم هنا نقطه ها إسلام كوان للكل بني آدم ونبى إلهي وسود يا جن يا عالم كلنا هنا إسلاما وهي ديار بانا سقوا ولي بكفر أحسن وهذا جعل مشاهد كيوم بانقولها وقال لي مخرب كيبا سوق قال لي وشهادتين كي قبيس كي سي وحسي ودن ولا دمي مخرب كينا سوى مسلنا او ظاهر ابو نرت كدي انا دهن marka hadalo bayaan jeediyo bayaankii ninkaas aan ka dhigay waxa ninka kan يوم القيامه haduu halka idin qabsado oo yiraahdo ilaahay dadkan daris baan ahayn anna islaamka waan rabay mana ina ii sheegin maxaad oranaysaan ilaahay xagee ka galeysaan maxaa ayaan darada waxa idin ku sababa لين مشي بين الدين المسؤول كتين إن أد جود بيشو دين تاني أد جود بيشو وضدك كلا أو جود بيشو وضدك دين تو بهين أو قوة كان يدي سود ويا يقوليها يدي سيء جارية يدي سيء باسبور يدي سيء نورشة الدنيا يدين هجاجي إن كباه بديهين يجا باهيدو ذا يوحي باهيهين باهيدة تيوين إن ربي قد على قل يشان إن لا إله إلا الله رهان محمد رسول الله inay jannada galaan inay cadaabka Ilaahay ka badbaadaan ay u baahan Sweden iyo Denmark iyo Finland iyo maxay ahayd Norway duwalka waxa la isku yiraahaa Scandinavia ayaa la isku yiraahaa waa dawladaha la yiraaho way ugu nolol wanaagsan yihiin dakhligoodana waa ugu fiican yahay baa la yiraahaa waa meesha la yiri faqiir lagama ogola qof faqiir lama arki karo maxay yeelay xaajaadkiisa oo dhan dawladda kafaala qaaday hadii uu san guri haysan isla habeenka waa in guri la geeyaa mid baa yiri waxaan meesha basaska ayaan habeen anoo sugaya bas baan iska gamay hurda ila tagtay buu yiri wadan kalama boolis hurda yimid waxa meesha uu guri ma hidmiya kale hotel baan ku geynay warani guri waan leeyahay hurdoon baa meesha igu qabatay lama ogola ingiriiskii waad u imanaysaa meelaha kuwa jeejiifa laakiin Scandinavia ugu iman maysid meelaha mid jeejiifa lama ogola dawladdan ogolayn guri waa in la siiyo cunto waa in la siiyo wax kasta noloshiisa waa in loo dhameystiro haddana iyadoo saas tahay waa meelaha ugu badan ee ay dadku isu dilaan af carabiga waxa lagu yiraahaa intixaar waa qofku isagoo kas yani iskula kac oo camdi ah naftiisa u dilo ayaa la yiraahdaa intixaar كهو بوسكدي
mid bastoole isku dhufta mid tareen isu tuura mid sun caba mid wax buu sameynaya yawmiyan hada maalin kasta wax ka maqanna male nolosha adduunyadu waa wanaagsan tahay wax kasta way haystaan adoonnimadii qofka xayiri lahayd inuu suu doono u noolaado u diidi lahaydna ma haysaan oo muslimiin maaha waxay rabaan bay iska sameynayaan ومع ذلك إذا شاستهي هذا نوش دليان كو وحا لقيا با قف كستو دارك تو أما أبيه باش دلي أما هويدي باش دلي أما ولالك باش دلي أسرة كستبدي مديش دلي با كل حجراء مركا ديغا سيد حقشو يضدك الحجوغا كل حنول مركا كاقش كيان هل كا وحي دليل تاي إنه إلهي هذا الكيس ونبيهي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى nolol ciriiri ayay ku jiraan yaa gargaar u muslimiinta yaa la doonayaa inay gaarsiiyaan diinta adigaaga halka fadhiya haddii albaabka la soo istaago leeyahay Sweden baa idin doonaysa maanta ma tagi lahaydeen yaa wala boobil albaabka ومحل la doonayaa in la tago in dacwo loo tago mahmiya anigu soo waxaan hubaa haddaad niyeysataan inaad adduunkoo dhan dacwada iyo diinta ilaahay gaarsiisaan ilaahay meel kasta idin geynaya meel kasta allah rabbul aalamiin uu ku geyn laakiin aduu niyada iska xumaynin oo ha oranin waan isdhiibaya xaqa ilaahay horaad ilaahay isugu dhiibtay ilaahay baa isu dhiibtay magaal baa isu dhiibi jamaacad baadan baa tagay halka ka tagayo markaas ay leeyahay warmiyada Mareykanay tageen warmiyadan isdhiibeen waan isdhiibnay sheekh Ismaaciil horaan isu dhiibnay oo ilaahay baan isu dhiibnay ilaahayna isu dhiibay goormu bani aadam kale isu dhiibay walafdigaas baa la yaab leh hebel haye Sweden buu iska dhiibay bay kuleen ma la diiraa bas la diiraa uu iska dhiibay oo yaa isu dhiibtay soo adiga barigii hore ilaahay isu dhiibay إذ قال له ربه أسلم هشيس كام ياذا كجرين أسلم وأسلم مقته قال أسلمت لرب العالمين هراد يسود دي بنيت به ومرة بد بس دي بيجا لا إله إلا الله وكابا ألست بربكم نمر هري بعيد هذه وندون كبا إيمان يا أباها ووجا يمنا إيمان في صلب آدم عليه السلام أيا بدي له هشيس لقى شيء بقى أو دي سود دي بتي ألست بربكم مركويرين قالوا بلى شهدنا أتري مركا نرلكم النولا دتكاسي نرلكم النولا لكن للأسف الشديد أدونك ولا امتحاني امتحان بلش قلي خير بدن بدها شتان والله أنتم في خير ونعيم هرت الحمد لله لها ثم الحمد لله لها الحمد لله لها نعمة هذا شتان هي خير هذا شتان هي مساجد هذا شتان انتنا هذا ما يشفر ذا مساجد قاضي لا يهي قار كور فرستين قار laga yaabaa marmarka qaarkii inay xataa meel intee waayaan wadooyinka ay istaagaan waxa idinku kalifay ma garanaysa ama idin sahlaya idinku kalifay ma waxa idin sahlaya waa nolosha adduunyada oo xoogay aan leedin badan wa illa hadini walbaba qasri yeelan lahaa yaa tii mashaayid maxad ka soo dooni lahayd qasri baabad ku jirtaa qasri iyo khadam iyo xasham iyo sida kuwa aan agtooda la deganahay oo kuwa aan la deganahay kale lagama yaabo abadan intan shan iyo lix ku soo haray meesha hada tiraabeen baan jeedinay de gurigiisii baa u yeeray xagaas looga yeeray qasrigiisii baa u yeeray soo maad garan markuu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam asxaabtiisa uu ku leeyahay fa wallahi mal faqra akhsha alaykum faqri idin ka baqi maayo bimaana lidiinikum nabigu diinum buu diinta ugu muhiimsanayd agtiisa cadaabka ilaahay laga badbaado jannada la galaa ugu muhiimsanayd ummadiisa ilaahay umuuna bariyeen adduunyada uu siiyo wuxuu u bariyay inay cadaabka ilaahay ka badbaadaan jannadana galaan diintoodana ilaahay u ilaaliyo marka faqri idin ka baqi maayo buu waxaan idin ka baqayaa in adduunyada la idin bastiyo oo la idin fidiyo sidii kuwii hore loogu fidiyo kale oo dabadeed aad intaad ku barbartantaan oo ku tartantaan ay idin halaagto sidii kuwii hore u halaagtay